dhawaan fanaanada la yiraahdo Shaadi Sharaf waxay soo saartay hees muuqaalkeeda dadka aad ay ula yaabeen isla markaana markii dambe heestaasi YouTube-ka laga saaray. YouTube-ka markii laga saaray gabadhaasi waraysi gaar ah oo ay bixisay waxay ku sheegtay in dadkii YouTube-ka ka saaray ay yihiin dad cadow iyada ku ah horumarka fankeeda isla markaana ay suurtagal u tahay in ay dib u soo duubi karto muuqaalkaas muuqaal la mid ah mar dambana aan YouTube-ka laga saari karin ayna ka fiirsan doonto. Haddaba waxay la joogtaa mid ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed oo gabar waxay ka hadli doontaa heestaas qaabka muuqaalkaas oo ahaa iyo sidoo kale jawaabtii ay ka bixisay markii la yiri Shaadi Sharaf heestaada YouTube-ka laga saaray. Soo dhawow. runtii aad baan u dhawahay walaalo waan dhawahay haddii aan ka hadlo video clipkii gabadhaas ay soo duubtay anigu gabadhaas ma ahan gabar hore u aqaanay videogaas ka hor waxaan arkay iyadoo maalin qora radio dhan saa loogu baahiyo gabar isleeda taloma ficil muuqda ay sameynaysaa isleedahay runtii markaas igu horeysay arageeda aan aqoonsado maalinkaas igu horeysay markaan arka muuqaal noocaas runtii anigii waa qajale oo yaabay wallahi yaxyax inaan videoga ilaa yaxligaas aan dhameystiran ma aaminaysaa sababtoo waxa weeyaan waxa damiirka qof damiir la sidiisaba ilaahay damiir iyo karti iyo qofnimo u galiyay ma aha ay maartay qof waxa ku dhiiran karo qof oo daawan kara ma aha runtii anigu videogaas markaan arkay waan ku qaraacmay waan naxay waxaan ka soo qaaday ama gabaran dhalay ama gabar dhaltay ama gabar ehelkayga kale ka soo qaaday laakiin iyadoo gabar Soomaaliyeed oo ehelkayga maanta waxba ma dhaanto laakiin dad baa fidnay dad baa fogay dad baa le war videogan heestan marka duubto waxay ku kala kacaysaa waxay yeelanaysaa daawadayaal waxay yeelanaysaa like iyo comment waxa la yiraahdo imtixaan like iyo comment la dhaho iyo caanimo ay dadka la ku farday oo madad la ku imtixaanay saadirtii qof walba sumcadiisa uu dhaafsaday arintaas laakiin kulli gabadhaas anigu horta aad baan u dhalilayaa oo aad bay u sumcadi beeshay oo aad bay noo ceebeysatay oo aad bay ehelkeedii iyo sinjigeedii maaragtay iyo adigu Soomaalimadeediiba gabadhaas dhulka la gashay way is ceebeysay wayna is sumcad tirta soo maaha hays sumcad beeliso mooy kaliya sumcad laanta kuma eka waxay ku egtay qof walba Soomaali ay gaartay waxay gaartay qoyska ka dhalatay wiil haduu la dhashay wiilkaas sumcad ma harin gabar haday la dhalatay warkeeda aabahay dhalana iska badaaba samaad fahmin wiil iyo gabar wiil iyo oday gabadhaas dhalay mise wiil la dhashay intuu geed fariisto astaagii inuu la hadlo horta ka yaab ilaa waxaan leeyahay naagtiis fariinaysa walaashaaya oo meesha macna public taale meel ba lagu wadootay taasina horta sumcad darada gabdhaha inta badan qof walba gabar dhalaa oo kaga cabsado gabadhaas arrinkaas way soo jiidato waa keentay laakiin waxaan leeyahay walaalay heede horta hoos isku fiiri oo waxa fiirisaa dhaqankan aad ku dhaqaaqday ma waxaad ka dhaxlaysaa magac ma waxaad ka dhaxlaysaa sumcad darada ka dhaxlaysaa maxaad ka dhaxlaysaa su'aasha ugu horeysa inaad weydiisay aad mudan tahay waa inaad dhahdaa maxaad ka dhaxlaysaa dhaqankan maxaad ka faa'iideysaa ficilkan sumcad intee la sumcad darada intee la ayaa ka soo gaaraysaa saaxiibtaa waa ku bilowdo horta filinkan anigu magacin ma carabaabay laakiin ma qarsoona laakiin saaxiibtaa saas waa taageereen way ku hesho waa hadda afa ku dhiftay marka saaxiibta ma ahayna horta saahada ficilka gabadhan baa saayid ahayd ficilka ay sameysay nadiiro waxaan arkay inay iyadu turkeeda xabadka ruuxaysa dhaqankiisa xabadka ruuxaysay laftirkeeda dhaqankiisa sameynaysa dhaqan wanaagsan ma ahayn laakiin ma arkin tooshka hadda lagu ifiyay gabadhan cid ku ifisay maan arag samaada garan marka inantan way fogaatay waan is ceebeysay waxa ay soo haray waxa jiray videoga alxamdulillah rabbil caalamiin waxna maqlay in YouTube-ka laga saaray videoga waxaad ogaataa marka YouTube-ka in heer YouTube-ka laga saaray uu gaaray waxaad fahmaysaa in magac maaragtay gabadhaasi videoga ay dubtay aad ugu sumcad beeshay Soomaali badanna waxay uga saareen la gabadha gurigooda kuma noole magac xumadaas ay kaga saareen meesha YouTube-ka saas ay kaga saareen samaha marka waxaan oran lahaa waxay ku tilmaantay inay yihiin dadka YouTube-ka ka saaray muuqaalkeeda inay yihiin dad cadow ku ah horumarka ay ka sameeyay fanka adiga ma ku muuqataa horumar ay sameeyay horta waxa isleeyahay qof walba horta qof dilay hadii la yiraahdo nin qofka dishay maxaa u dishay dhacdo in inta la qabto oo xaq ka soo baxo inta la saaro maxkamadda ku yiraahdo qofkaas ma dishay waan dilay laakiin waxa uu qasbay buu ku yiraahdaa mid ka sii dambeeyo amiir kale oo mid kale ka sii awood badnaa oo dib u sheegtay yani ama aan run ahaynba ayuu horta wuxuu yiraahdaa wali u kale fahmaan ma dilay ama shaydaan bay watay ayuu yiraahdaa waa ficilka ugu dhow yani kuma marsiyan karo hadii cadow jiro cadowga Soomaaliya dhan waxa la horta wadar iyo waaxid ka waalan
saaliyiro waaxid baa waal ilaa wadarimo wax ma dhaci kartin wada waalihiin macquul ma wada ahan marka walaalay wax lagu arkay dhaqan xumo adeeg ka qarsoon ma wax adeeg geeda waxba ugu soo gamban cadow iyo cadow la cidna ma jirto kuintaasha joogta oo Soomaaliya taageera baa haysataa kuintaasha samada fahmin saasoy tahayna ficilkan arkayna walaal cid samaysan ma jirto naama kala walaalan ku qorxanta inaad gacantii isku dhaweysay iyo alaabta isku dhaweysay ma kala qorxantahay waxaad naga keenaysaa horta hadalada qaar waxa jira oo qof ahaantaada ka qajisho laakiin marka qaar markay mastibi kugu noqoto inaad sheegto kugu soo dhacayso na walaal heede waxaan su'aal baan ku weydiinayaa way dhici doontaa inaad maqlaysaa way dhici doontaa inaad maqasho wayba maqlaysaa ka soo qaad inay maqashaa laga yaabaa gabadhaasi inay gacanteedii iyo alaabteedii cambarkeeda isku dhaweyso oo tirada dhinac ku soo xarooda sumcada ka soo raacaysa maxay tahay in sumcada ka soo raacdo baahane maxay tahay hadii muuqaalkaas muuqaal la mid intay soo duubtay YouTube ay soo geliso mar kale dib u soo geliso oo ay suurtagal noqon in laga saaro cawaaqibka ay ka dhaxli karto ayada iyo nolosheeda dhammaan maxay noqonaysaa wallahi horta walaalo horta cawaaqibteeda xagga dhig adduunku waxa jirta wax inta la barto naga dawaa wixii gabadha haday fiidiyooga dib ugu soo celisay ee soo duubto horta adduunyo aqra iyo waxaan ku raayay ehel iyo Soomaali midna wax ma dhex yeelan samada fahmin dibna ma laho waxa jirta Muqdisho marka loo fiiriyo meel waxa jirta dadka ay ku caan yihiin oo naga dadkaas waa dadkii xaafadaha Hiblaaye marka haday fiidiyooga soo duubto waxaan wada aqoonsanaynaa inay tahay carruurtii buurkaloole buurkaloole ayaan waa aqoonsanaynaa buurkaloole dadka fahansiin buurkaloole waxa la yiraahdaa meel dumarku jirkooda ka ganacsada ba jirta iska fariyihiin oo say doona u dhaqmaan marka cid Ilaahay mooy inay cid kale ka cabsadaan jirin